si laabtaadu ay u caafimaado, si aad ridaa u hesho, si aad deganaanshiye u hesho. idan cid kastoo warwar hayo ama walbahaar hayo ama cidhiidhi adduunye u hayo ama mushkilad xallin kari waaya, daraa'iqda lagaga baxe koowaad ee ah inay naftaadu badbaado, in qalbigaagu dego, niyadaadu degto, aada xasisho, adduunku aanu dhib kugu haynin, waxaa laga helaa baa ilaahay tilmaamaya tasbiixda ilaahay. adigoo tasbiix iyo taxmiid la yimaada ayaa laga helaa. in sha allahu tacaala waxaynu ka gaadhno mowduuca tasbiixda ku saabsan, siiba qur-aanka iyo siduu ugu soo arooray wax ka mid ah. waayo qur-aanka 47 suuradood oo ka mid ah, 83 aayadood oo ka mid ah ayaa waxay tasbiixdu kaga soo aroortay 87 goobood. waxay tilmaamaysaa tirada intan leegi ahmiyadda rabbi siiyey subxaanahu wa tacaala tasbiixda iyo macnaha ballaadhan ay xambaarsan tahay. idan wax ka mid ah wixii aynu ka gaadhna baynu tilmaami doonaa. tasbiix subxaana allah ereygaas liyan macnihiisu waxa weeyaan rabbi oo wixii aan u cuntamin u qalmin laga fogeeyo. waa tansiih ullahi subxaanahu wa tacaala. waa rabbi subxaanahu wa tacaala oo wixii aan u cuntamin ama u qalmin laga fogeeyo. taxmiidda ama xamdaladuna waa ilaahay oo lagu ammaano kamaalkiisa dhammaantii iyo afcaashiisa. idan subxaana allahi wa bixamdihi qofka muslimkii markuu leeyahy waxa weeyaan ilaahay wuxuu ka dheeraynayaa wixii naqaa'is oo dhan, wuxuu u sugayaa wixii wanaag oo dhan. ereyga kan waa lafdi carabka ku fudud, laakiin aayaadka qur-aana markaynu eegno wax badan ayaa ilaahay faray nebigu inuu u adeegsado calayhi salaatu wasalaam. ugu horeyn dunida waxaynu u nimi in layna imtixaamo, waana imtixaan. in badan baynu tilmaamnay ama qur-aanka soo aroorin oo ilaahay tilmaamayo kullu nafsin daa'iqatu lmowti wanabluukum bishari waalkhayri fitna wa ilayna turjacuun. dunida intaynu joogno shar iyo khayrba in laynagu imtixaami doono. dadku inta badan sharka imtixaankiisay fahmaan, oo qofku markuu xanuunsado ama faqriyo ama ammaan darra ku dhacdo ama mashaakil kala qabsado ama tijaaradu ka khasaarto ama waxaasi, imtixaankaa dadku inta badan wuu gartaa. waana la arkaa dadka inta badan inay ilaahay usoo noqdaan subxaanahu wa tacaala markay dhibtaa la kulmaan. dhanka kalena waa imtixaan. caafimaadka, xoolaha, nabadda, adduunka, magaca, maamuuska, sultada, kullu haada iyana waa imtixaan kale. ilaahayna qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa ambiyo labada imtixaanba martay. oo qur-aanku wuxuu ka warramayaa alcasri الdahabi lilyahuud. waxay culimmada taariikhda ku tilmaamaan cusuurtii dahabiga ahayd ee yuhuud soo martay. waa cusuur ilaahay uu u kulmiyey diinta iyo madaxnimada isugu kulbeertay. waa casrigii taaluud ka soo bilaabmayey ee nebiyullaahi daawuud uu qabtay madaxnimada kadib isagoo nebiya. taaluud iyo nebigii la joogay labay kala ahaayeen, laakiin casrigii nebi daawuud baa ilaahay isugu daray nebinimada iyo madaxnimadaba. kadibna nebi sulaymaan oo imtixaan ballaadhan la geliyey oo ilaahay weydiistay imtixaan aan isaga dabadii cidnaba intuu salaad ama wakti macrad la soo maray wax dhaafdhaafiyey ayuu rabbi wuxuu weydiistay imtixaankan ka weyn in la geliyo, oo ah boqortooyo aan cid aniga iga dambaysa u cuntamin in lagu imtixaamo. tii baa la siiyey. dabeetana wuu ku guulaystay imtixaankaa. markuu ku guulaystay ilaahay qur-aanka wuu ku ammaanay, waxaana alla ku tilmaamay nicma alcabdu innahu awaab baa ilaahay ku tilmaamay. nicma alcabd
doon fiican inuu yahay doonkii uu fiicnaa oo noqosho badan qur-aanka ilaahay ambiye kaleu tilmaamo imtixaama oo dhib lagu imtixaamay iyana waa rusul waa ambiyo qur-aanku nebi ayuub wax kale inoogama sheegin imtixaankiisii mooyaane nebi ayuub oo la imtixaamay oo imtixaankiisu xanuun yahay sunnadana culimmadu waxay tilmaamaan axaadiista ay sugaan inuu 8 sannadood u bukay isagana ilaahay markuu imtixaanka ku guulaystay wuxuu ku yidhi fii nafsi suura nicma alcabdu innahu lafdigii lagu tilmaamay sulaymaan inaa wajadnaahu saabira nicma alcabdu ayaa ilaahay ku tilmaamay waxaanu hellay addoon sabir badan inuu yahay isaguna nicma alcabd awaabna waa lagu sheegay idan labada imtixaanba waa laba la ismariyo ilaahay qur-aanka wuxuu inooga warramayaa nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo labada imtixaanba la mariyey laakiin labada imtixaanba waxyaabaha ilaahay faray inuu adeegsado si ugu guulaysto imtixaanka dhibta ah fasdac bima tu'mar waacrid can almushrikiin inaa kafaynaaka almustahzi'iin aladiina yajcaluuna maca allahi ilahan aakhara fasawfa yaclamuun walaqad naclamu anaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun ilaahay wuxuu nebiga faray waxaan ku amray ku dhawaaq gaaladu waxay sheegaysana ha u dhegtaagin ka jeeso adugu wixii lagu faray samee iyaguna waxay doonaan ha sheegaan waa saaxir waa kaadib waa shaacir waa kaahin waa kan ay waa la maaga ilaahay wuxuu ku yidhi inaa kafaynaaka almustahzi'iin kuwan kugu jeesjeesaya annagaa kaaga filan baa ilaahay yidhi aday kugu jeesjeesayaan laakiin xataa taada dembi ka weyn bay ku jiraan oo maxay ah aladiina yajcaluuna maca allahi ilaahan aakhara fasawfa yaclamuun baa ilaahay yidhi waa kuwa alle subxaanahu watacaala cid kale ku lamaanaynaya oo la caabudaya haddaba nebi maxamed cidhiidhi baa haleelay ka haleelay rabbi waxa laga sheegaya iyo diinkiisii sida looga hor yimi waxaad qiyaastaa adiga innaga waxa laga yaaba inu dhahno dacwad baynu sheegno dadkii baa aqbali waayo bal waxaad qiyaastaa iyadoo adeerkaaga laxmiga ahi uu ku dabagalo oo halkaad istaagtaba markaad tidhahdo war ilaahay ka baqa uu yidhahdo kan yar annagaa dhalay oo waxba ma sheegayo waa been waa dawaqeeyaha dhegaysanina maxaa kugu dhici lahaa yacni inay dadku wax kaa dhegaystaan daaye haddii adeerkaa iskaa daba taago oo markaad wax sheegtaba isna wax kaa daba sheegaya nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam cid kale daaya adeerkii abiilahab baa daba taagnaa oo markuu wax sheegaba wax kale tilmaamayay ilaahay diintiis sida looga jeestay buu cidhiidhi galay nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa uu markhaati furaya cidhiidhigaasi jiro walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun baa ilaah yidhi waa ognahay in laabtaadu cidhiidhiyoomayso waxay ku hadlayaan daraaddeed waxay ku hadlayaan daraaddeed inay laabtaadu cidhiidhiyoomayso aayaad kale qad naclamu inahu layaxzunuka aladii yaquuluun falaclaka taarikun bacda maa yuuxaa ilayka wadaa'iqun bihi sadruk an yaquuluu lowlaa unzila calayhi kanzun aw jaa macahu malak aayaad badan baa ilaahay kaga warramaya nebiga calayhi salaatu wasalaam cidhiidhiga soo gaadhay laakiin malxal muxuu kaga baxayaa ilaahay wuxuu yidhi fasabbix bixamdi rabbika wakun min asaajidiin ilaahay u tasbiixso adigoo tasbiixdaada ku maraya amase ku dheehaya xamdiga alle subxaana wa tacaala inta sujuudana ku biiraya ka mid noqonaya waxay culimmadu yidhaahdaan halka kan waxaa nebiga loo sheegay dawaa-un yustashfaa bihi min diqi sadr wa tiryaqun lilaxzaan bay yidhahdaan dawo lagaga caafimaado laab cidhiidhiga iyo wax lagaga bogsado murugada iyo tiiraanyada oo ah subxaana allahi wa bixamdi iyo salaad ilaahay subxaana wa tacaala loo tukado walidaalik ay culimmadu waxay leeyihin aayaddani waxa ay sheegaysaa tasbiixaadku inay yihiin cidhiidhiga qofka muslimkii markuu galo wuxuu kaga baxo cidhiidhiga nafsiga ahi markuu ku qabsado waa wax lagaga baxo qur-aanka dhul badan oo nebiga calayhi salaatu wasalaam loo tilmaamay in mashkelada haysato waxaa la amray sabir
oo tasbiixso ama sabir oo salaad adeegso. مثلا في سورة قاف إلهي وحليه فاصبر على ما يقولون waxay ku hadlayaan ee afxumo ee ay sheegayaan ee alle iyo diintiisa ka sheegayaan ee nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sheegayaan fasbir calaa maa yaquuluun baa ilahay yidhi waxay ku hadlayaan ku sabir oo maxay samee wasabbix bixamdi rabbika qabla طuluuci الshamsi waqabla اlغuruub wamin alleyli fasabbixu adbaara الsujuud baa ilahay yidhi tasbiixso adigoo ku dheehaya xamdiga alle waagu intaanu beryin iyo cadceednu intaanay dhicin iyo habeenkii mufasiriinta badh baa meeshan salaad ku fasira mufasiriinta badhna daahirkeeda ku fasiraan ayan kaanat waa labadii masale aynu tilmaamaynay dhibtu markay qabsato in la tasbiixsado fii suurati ghaafir ilaahay wuxuu leeyahy fasbir ina wacd allahi xaq wastakfir lidanbik wasabbix bixamdi rabbika bilcashiyi walibkaar sabir ilaahay yaboohiis iyo ballankiisa waa dhab oo dembi dhaaf weydiiso oo wasabbix bixamdi rabbik tasbiixso adigoo ku marayo ku dheehaya alle mahadnaqi fii suurati tuur baa ilaahay wuxuu leeyahy wasbir lixukmi rabbika fainaka biacyunina wasabbix bixamdi rabbika xiina taquum ومن الليل فسبح وإدبار السجود وإدبار النجوم في سورة الإنسان يا إلهي وحلي فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا وهي علماء إلى هذا مال كسته ونبي عليه الصلاة والسلام انت بدن صبر لفره ودي بأي قبصته خاصة دبت نفسك وحال فري النبي عليه الصلاة والسلام دودي سنتين تصبيح سنة الأصل ذكر الله سبحانه وتعالى تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب كاسا الصلاة تصبيح دي التحميد ونوحي كم دين ذكر الله سبحانه وتعالى سيجارة مركا الله فري النبي عليه الصلاة والسلام عديد حدود دريمه وهذا الحمو ياف حمو iyo cay iyo ceebayn iyo haydaarteen haddii lagu hayo inuu maxay tasbiixsado waxaa kaloo ilaahay qur-aanka inoogu soo naqliyey nebi cidhiidhi jasadi iyo mid nafsiiba qabsaday oo ilaahay tasbiixdan isna ku badbaadiyey wadannuuni id dahaba mugaadiba fadanna an lan naqdira calayh fanaadaa fi ظulumaati an laa ilaaha ilaa ant subxaanaka inii kuntu min الظaalimiin nabiyullaahi yuunus qisadiisa qur-aanka macruufkii waxay tilmaamaysaa inuu ka tegay duulkii uu la joogay badda uu galay doontii laga tuuray dabeetana habeen madow culammadu say sheegaan dulumaadka iyadoo madow oo bad madow haddana uu sii galay xuut hungurigii faltaqamahu lxuut baa ilahay yidhi muu calaalina wuu libqiyey xuut baa haddana liqay baa la yidhi halkaa isagoo ku jira fanaada fi ظulumaat baa ilahay yidhi mugdiyadu ka dhex qayliyey muxuu ku qayliyey muxuu ku dhawaaqay an laa ilaaha anta waa mufasiradii laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min الظaalimiin laa ilaaha ilaa ant ilaahu keligaaba xaq lagu caabuda subxaanak xumaka hufnaantaada yacni rabbi meeshan uu ku jiro wuxuu sugayaa bay culimmadu leeyihin inaanu dulmi alla sameeyey aanu ku gelin laysa bidalaamin lilcabiid wuxuu sugayaa wax isaga xaggiisa ka yimi uun inay tahay saa daraaddeed bu wuxuu leeyahy laa ilaaha illaa anta ilaahu adaa keliga xaq laguu caabudaa subxaanak xumaka hufnaantaade inii kuntu min الظaalimiin buu leeyahy anigaa inta dulmi fashay ah ee adiga ficilkaagu ma aha maxay qadartaada dulmi kuma jira buu leeyahy ee anigaa inta dulmi fashay ilaahay subxaanaه wa tacaala qur-aanka muxuu ku tilmaamaya markaa sababu najaati baa ilaahay inooga warramay rabbi wuxuu leeyahy falowlaa anahu kana min almusabixiin lalabitha fii baطnihi ilaa yowmi yubcaثuun falowlaa anahu kaan haddii lala yahay baa ilaahay leeyay inuu ahaan jiray kuwa tasbiixsada kuwa tukada kuwa tasbiixda wada haddaanu sidaas ahaantuu ahaan jiray baa ilaahay leeyahy haddii taa lala yahay wuxuu ku sugnaan lahaa meesha tan ilaa waqti dheer
معنى وحويا إلهي وحوت المامية تسبيحات كيسا إلهي كوبد بادي ضيق يعديني كوكتشري إنه بدل قضي ومركو هوري بدو دقيد لعير صدارة بيسومالو دوتر هذا بدو قفكو مركو قرقومو ومالها أنا يتشرين قفكو إنه رجادو كو يراتو إساقو بدكو دعا هدنا بهل سلغ إلهي وحوت المامية ماشاس وقالي إنه كجبد بعدي عديريكا تصبيح دوتي تصبيح ديسي إنه كبد بعدي وهي علماء إلى هذا قفك اللابتيس إنه يفيوده أو رضا اطمئنان وهلو أو رالي النقضه وأنا إنه لشو عديري بكون نقنن هي تصبيح ده علاقة كده حيسبي لي يقول آية سورة طه هذيك سنية سورة طه إلهي وحلي محي فاصبر على ما يقولون وصبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فصبح وأطراف النهار لعلك ترضى بإلهي والنبي قال عليه الصلاة والسلام صبر وحايكو هاد ليانا يفحما وتصبح صادق كل هي ألا ما هدنقي أدعدو انتانا يصابحين يا انتانا يدعين با يا هبين كيبا بالليل فصبح وأطراف النهار بالليل ما لا تدعى لديد يعني استوعب التصبيح اليوم كله هبين مالين عدعت صبح عدعت دع وقت كستال الشيء أول الليل إيه أطراف طبعا تسبيح ده سمحي كردين لعلك ترضى كي ترضى بالليل سلاب تاضا يعافي ماضا سياد الرضا وهشو سياد دقناشية وهشو إذا عد كستور ورهيو أما والبهار هيو أما عريري الدنيا وهيو أما مشكلة حلين كرواية طرائق ذا لقا بحي كواد يا أهيني نفتادو بدبادو إن قلبي قاقو دقو نيدادو دقتو أتحسشو أدون كانوا نبكو هينين وحلقة هلابا إلهي تلماما يا تصبيح دا إلهي أدقو تصبيح هي تحميد لي ماذا أيها لقى هلا حتى علماء بدبا وحيد هذا صلاة لفتة دوبا ده يبوا تصبيحه وإلهي القرآن كمركو تلمامي في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يصبح له فيها بالغدو والأصال يصبح له صلاة دورن بالغو إطلاقي بيلي تصبيح ده مركا التصبيح دي صلاة ده مركو هربا ومن أهم ما يشتغل به الإنسان في صلاته وتصبيح تحميد ولذلك نبي عليه الصلاة والسلام حديث معاوية بن الحكم ننكي صلاة دواقي هوري والإسكهر لجري أدقو صلاة هذا إسكتو كرية أيها نكا كوحي وبرهركي كورات سكورة كريسي دي بمجري مرد ما وسودك القرآن إلهي وتلمام يقوم لله قانتين إن صلاة وحكا للغو سمين إنما نساق وركاسي سوق قارين أيها صلاة دي كوهاد لي نمبا هندسي يرحمك الله هو اسكيري دبتنا والله سنقري إنه وركا تشوشيو ورمحي لا يقول بسمبر ثكلتكم هو يدين كقبلنتي هذا الكي مصيبه صلاة دي مركي لقى بحيب النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقول لي ما رق معلم كفي عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام إمام ماجد وإمام دقالين وحي يقول والصلاة تاني ومصوبمه بناء آدم كهذا الكيس وحكم ده إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن بكير حديث مسلم كيان إنما هو صلاة دبا وتصبيح يتكبير يقرأ الآخر يبو نبي المام عليه الصلاة والسلام ولذلك علماء وحيد هذا صلاة ده إلا تضوى ما يراد كم إذا تصبيحات قصار ورام بين هذا كو افتتاحيات كصلاة قيبة كم إذا تصبيح سبحانك اللهم وبحمدك وتلقوا بالعظم أما بس الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والسبحان الله بكرة واصيلة افتتاحيات كوحكم ده قارية KCL 190L نكالي ها قادا ليل KCL 190L تصبيح ذو مركة صلاة واللغو بلابا
والركوع دوا تصبيح سنة سبحان ربي العظيم وسجود دوا تصبيح سنة وآيات التصبيح قرآن كمركا دخريسة هذا سؤال رتوا تصبيح سنكرتا وإمام كمركا للتنبيه هدو قلدم ولا تصبيح سدا وقف كان فاتحة أقونا صلاة الله برا أنت فاتحة كبرنا التصبيح بكنت كان كرا ومركا صلاة الله دمية ولا تصبيح سدا إذا وحيد هذا وتدوم ما يلوض كم إذا صلاة وتصبيح هذا صلاة هو نوع من التصبيحات قفك مسلم كي مرك هدي لبقبصته نبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة داي لبقبصته صلاة حق يدو دق يشري نبي عليه الصلاة والسلام هذا الضيق يدبتو مركي جرته waxa lagaga baxa itminaan lagu helo rida qalbi aad ku helayso deganaanshiyaad ku helayso xanuunada maanta dunida waalay aad kaga bogsanayso dunida waxaad maqlaysaa qofkan stress ba ku dhacay qalaq ba ku dhacay iktiaab ba ku dhacay depression ba dhacay xanuuna tiro badan oo nafsaaniya oo dhamaantood qofka bini aadamka systemkiisa nervaha iyo hormoonadiisu shaqeynayeen khalkhal galiya maanta xanuunada ugu badan ee bini aadamku bay yiraahdaan asalkoodu waxyaabaha soo ka bilaabma marka dambe biological isu bedelaa bay yiraahdaan waxa soo xanuuna aslanba intaanu kugu dhicin wax lagaga bogsado waxa kamid ah culays kasto ku haya wuxuu ka degaya ayaa ilaahay leeyahay tasbiixda hadaad la timaado dhanka labaad haday fitnadu kaaga timaado maalka iyo sultada iyo xoogga iyo marka aad isbiddo يدنا وخطر إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى بايل هيري بني آدم كوا قوقه وكبراه واحد قدباه هدو أركو إنو اسكف العضي هدو أركو إنو السلطة هلي مهم القعنتي سباور هلي هدو أركو إنو هانتي هلي إسنا شيطان كوا أفوفا أفوف كان ولا قبك سنكره dunida aynu maanta naqaano dadku maalmaha ay guuleysteen maalmaha caynkana ka dhacay cududooda ay muujiyaan dawladdu waxay soo bandhigtaa maxay militarigeed iyo waxeedoo dhan yani Soomaalidu maalinta ay xorriyadda heshay hees iyo damdam iyo alla caasidii bay bilowday bini aadamku xataa dadka in badan oo markay guurka uu salaxmay uu guursado habeenkaasi macsi iyo baliya basba la wadaa أصل كنا وحوها مركز نعمها شو إن شكر نقدت نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام لبعضن يصدح سندود بودين تمودي واو قاچودي واو دب مطي واو دغالمي واو يعني وح نلش لغا سو مرودن بو كسو مري وح نلش لغا سو مرودن hortiisa ragiisa lagu leeynay oo waxba u tari kareynin sabrana la yaasiriyo wixii lagu hayay maka ragii joogay buu la noolaa isagoo waxba ka qaban karin cidhiidhigaas soo gaadhay isagoo ka hijroodo ka tagay ayay ka daba yimaadeen gaalo dhan bay soo adeegsatay oo meeshii ay joogeen lagu soo wada weeraray arab oo dhan baa dhan ka wada martay waxa soo dagaal soo maray ilaahay baa u hiiliyay dabeetana ilaahay wuxuu ku yiri subhanahu wa ta'ala آخر سورة قرآن كسود دكته كسورة كاملة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا هذا دركتبه إلهي قوشي سكوتمي إيادتك ودين تسوى دقلية يعامل وفود مركي لقبل أبو قبيل بان نبي قال له إيمانية يرر وصعده أنا نوان السلام عليه هذا دركتبه دين تسوى قلية ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ضدك كوح دين توقعنا يا هدا دركتين ما حيس ما يبقى إلهي كويري مركا ما بدبرات نقاد بالليلي سيدي الصومالي ده بالكالي عنا بي قادين مركا على كهله ما يا إلهي وحكويري فصبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تصبيح حمدك قال لكم مريسد iyo istighfar la kaalay
إلهي سبحانه وتعالى يسقى توبة أقبله وهي علماء يدعى تنوح لك قبل بهذا العجب سلويني ده يستكبارك يكبرك وبن آدم دن كان مربوع عده دن كان هو بهلكو إبليس كبل أبي أنا خير منه ده هلكو كبل أبي ويا إنه قفكو كبره إلا إلهي كو يري أم كنت استكبرت أم كنت من العالين لقو يري ورميت سوينين إسا بس مركي هربوات كريسو هصبا لقو صادق بن آدم كو هدو عدود دي سأركانا وأفوف ما إنه دتك بكون يسمو ده إلهي النبي الله محمد وحكو يري عليه الصلاة والسلام مركو قوليستي waxaa lagu yidhi markaana haddaad guusha aragtana tasbiixda laazim subxaana allahi wabixamdih subxaanaka allahuma rabbana wabixamdik allahuma kfir li ayuu nebigu ka dhigay rukuucdiisa iyo sujuuddiisa markii ay aayaadkani soo degeen idan halkana waxaynu arkaynaa tasbiixda mushkilaadku markay jiraanna in iyada la laazimo saa qur-aanku inoo tilmaamayo barwaaqad iyo badhaadhuhu markay jiraanna in iyada la laazimo idan waa furo ka mida furayaasha nolosha haddaad rabto nolol degan inaad ku noolaato haddaad rabto nolol aan warwarka iyo walbahaarku ku badnayn inaad ku jirto haddaad rabto nolol aan waxa khaarijka ka ahi aanay ku dhibin hadduu col yahay iyo hadday colaatay hadday cay tahay hadday ammaan iyo suldo iyo xoog iyo xoolo tahay labada midna aanay ku dhibin aada qof normal oo ilaahay addoomihiisa ka mid aad ahaateed aada rabto waxaa qur-aanku inoo tilmaamaya tasbiixda badsada dunidaynu ku noolay kaa'inaadka joogo oo dhami ilaahay wuxuu inoo sheegay inay wada tasbiixsanayaan waa thaqaleynka un ciddan loo taaglaayay ee kolba meeluba cararaysa saa daraaddeed baa ilaahay kitaabkiisa wuxuu ku tilmaamayaa 13 aayadood oo qur-aanka ka mid ah oo 11 suuradood ku soo arooray ayaa tasbiixda waxaa loo tiirinayaa kaa'inaadkaasi fi suurati الracd fi suurati اlisra fi suurati اlanbiya tawba saba saad xadiid xashar saf aljumca atagaabun suwarkaasoo dhan iyadoo loo tiirinayo wayusabixu الracdu bixamdih onkodkaas baa ilaahay leeyahy waa tasbiixsanaya isagoo weliba xamdiga alle ku dheehaya wasakharna maca daawuuda aljibaala yusabixna waطayr nabiyullaahi daawuud ilaahay wuxuu leeyahy waxaan u sakhiray buuraha la tasbiixsan jiray aljibaal waطayr ayaa halkan ilaahay ku tilmaamaya tasbiixsanaya bale ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya tusabixu lahu الsamaawaat الsabc wاlardu waman fiihin wain min shayin laa yusabixu bixamdih walakin laa tafqahuuna tasbiixahum inahu kaana xaliima gafuura cirka waxaa jira iyo dhulka waxaa jira toddobada cir iyo dhulba waxaa jira iyo waman fiihinna waxa ku sugan oo dhami ilahay bay u tasbiixsanayaan wain min shayin laa yusabixu bixamdih shay ma jira baa ilaahay leeya ilaa iyo wuu tasbiixsanaya ee idinkun baan fahmaynin tasbiixdooda cid walbana ilaahay wuxuu tilmaamay masalak u khaasa طريقة وخاصة يتصبح سدانين يجرتو ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتصبيحه والله عليم بما يفعلون متولي بطريقة وتصبيح سدبوا لي يبا إلهي المامية بل وحد عضة كائنات كالتسبيح دودا إن مررك بنا آدم كلام قشيه معجزات النبي محمد عليه الصلاة والسلام آيات كي صحابة ضيارك تكرر عليه وحكمده حديث كبخاري عبد الله بن مسعود ورينيو ولقد كنا نسمع تصبيح الطعام وهو يؤكل بوليه ابن مسعود وحلي وحانو هاي كوا مقلية عنده تصبيح سنة نقول عنينا ولا الرؤيا وانا تصبيح سنة عنده عنيني وتصبيح سنة إلهي بمغشيه سبحانه وتعالى وإن من شيء لا يسبح بحمده ويا وحكم ده حديث أبي ذر ورينا إمام الطبراني صار الشيخ الألباني صحيح كنت المام وحلي وحان فردي حاضر وحانها النبي عليه الصلاة والسلام اكتيسة حلقة سقوا فردية
oo gacanta qururux dhagxan yar yar gacanta ku haya way dhagxantu gacanta ku haya ay tasbiixsanaysa buu leeyahay nabigaanu la fadhinay annagoo xalqa fadhina buu leeyahay kalima waliba wuxuu tilmaamay wa fiina Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali baa naga mid ahaa buu leeyahay ragga xalqada fadhiyay khulafadaasa ka mid ahaa dadka fadhiyo oo dhamina dhagxanta uu nabigu gacanta ku haya tasbiixdeeda way maqlayeen iyadoo la wada fadhiya la maqlay inta nabigu ku mudaynini wuxuu u dhiibay Abi Bakr baa gacanta ku qabtay markaasay tasbiixsadeen qururihi waliba tasbiixdaana dadkoo dhami waa maqlayay buu yidhi Abi Bakr baa nabiga ku celiyay calayhi salaatu wasalaam nabiga haddana wuxuu u dhiibay Umar markaasay gacanta Umarna ku tasbiixsadeen dadkoo dhan baa maqlayay buu leeyahay markaasuu nabiga ku celiyay calayhi salaatu wasalaam dabeetana nabiga wuxuu u dhiibay haddana Uthmaan buu yidhi markaasay sidii oo kale tasbiixsatay markii dambe dadka loo dhiibay buu yidhi qof dambana lamay tasbiixsan buu leeyahay dadka iyagii kale ma tasbiixsanin idan xadiidkani waa xadiid culimadu ay sixadiisa tilmaamayaan waxaanu sheegayaa in xataa qururux ay gacanta ku hayaan saxaabada tasbiixaadkeeda in la maqlayay cunno ay cunayaan in la maqlayay kainaadkao dhan baa tasbiixsada waa kii xadiidkii saxiixeynka ku yaalla Abu Hurayra warinayo nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam nebiyada ka mid ah ayaa qudhaan yaqaniintay markaasuu buulkeed meesheedii oo dhan amray in la gubo dabeetana ilaahay baa u waxyooday waxaa lagu yidhi ma hal qudhaanyii inay ku qaniintay ayaad axraqta umma min alumami tusabbix ayaad ummadaha ka mid ah oo tasbiixsanaysa aada u gubtay baa la yidhi idan inagu maxallo shaahidkeenu u soconnaa waxa weeyaan umma min alumami tusabbix qudhaanyadaas meesha daadsanayd inay iyana tasbiixsanaysay ayuha alaxiba tasbiixaadku sida ay muhimka diintan ugu yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala 7 suuradood oo qur-aanka ka mida buu ku bilaabay 114 suuradood 7 ka mid ah ayaa tasbiixaadka ku bilaabma sabaxa lilahi ma fi الsamaawaati wama fi اlard wahuwa alcaziizu اlxakiim suurat اlxashr iyo suurat saf aaya waaxida bay ku bilaabmaan suurat اlxadiidna ما في الأرض قنباء والأرض سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وحكروا قبل أمه سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم وحكروا قبل أمه سورة التغابن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وحكروا قبل أمه سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق وحكروا بالأمة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا 7 suuradood 5 suuradood oo quraanka ka mid ah xamdalada ku bilaabmaan الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل النور والظلمات يعني أنعام يا بقرة يا كهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا يا الصبا 5 suuradood oo quraanka ka mid ah iyaguna waxay ku bilaabmaan maxay xamdala haddaba ilaahay subxaanahu wa tacaala tasbiixdaasi siyaqa ficil maadi iyadoo ah waa soo aroortay 4 jeer ficil mudaaric iyadoo ah waa soo aroortay 20 jeer siqatu amr iyadoo ah 18 jeer siqatu ismi faacil iyadoo ah maratayn siqa masdara iyadoo ah 2 goor siqa ism iyadoo ah 41 jeer yacni 87 meelood bay tasbiixda ku soo aroortay oo 83 aayadood ku jira oo 47 suuradood oo qur-aanka ka mid ah in qur-aanka 114 suuradood 47 ka mid ah tasbiixi ku jirta waxa ay tilmaamaysaa kamiga tirada badan leh ee kayfiyadka tirada badan leh u soo arooray waa daliilun calaa fadlihi wa jalaalatihi bay tilmaamayaan bay leeyihiin culimmadu tasbiixdu weynideeda iyo fadligeeda iyo cinda allahi siday qiimaha ugu leedahay ayay sheegaysaa bay leeyihiin intaasoo siyaqoo tiro badan leh inay qur-aanka ugu soo aroorto 47 suuradoodna ay ku soo aroorto 83 aayadood oo ka mid ah ayuha alaxiba waxaan leenahay marka tasbiixdu siday muhimka u tahay ilaahay
ambiyada inta badan qur-aan ku soo aroortay in badan oo ka mid a tasbiixdooda ilaahay inoo sheegay nabiyullaahi moxamed risaaladiisa calayhi salaatu wasalaam in alla soo diray waxyaabaha lagu cileeyay waxaa ka mid a in dadku tasbiixsadaan inaa arsalnaaka shaahidan wamubashira wanadiira litu'minuu biاllahi warasuulih watucaziruuh watuwaqiruuh watusabixuuhu bukratan waasiila baa ilahay lehy waxaa nabiga loo soo diray in ilaahay la rumeeyo oo rasuulkiisa la rumeeyo oo la weyneeyo oo loo hiiliyo oo alle loo tasbiixsada baa la yidhi bukratan waasiila waxay culimmadu yidhaahdaan litu'minuu billah iyo walitusabixuuhu bukratan waasiila baa loo soo diray nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay yidhaahdaan nebiyullaahi muusa markuu dalbaday walaalkii in alle nebi uga dhigo waxay yidhahdaan waa ninkii walaal ugu anfac badnaa baa la yidhahdaa nebi muuse waayo walaalkii ilaahay wuxuu uga baryay in isna nebi laga dhigo nebiyullaahi muusa walaalkii markuu rabay in nebi looga dhigo ee ilaahay ka aqbalay maxaa uu ku cileeyey wajcal lii wasiira min ahli haaruuna akhi ushdud bihi asri waashirku fii amri sababtu u dalbanayaa waa maxay kay nusabixaka kaiira buu yidhi kay nusabixaka kaiira wanadkuraka kaiira ilaahayo walaalkayna rasuul ka dhigoo igu dar oo igu xooji kay nusabixak si aanu kugu tasbiixsanno oo uu iila xoojiyo dikriga ilaahay subxaana wa tacaala rabbow igu dir buu leeyahy nebi yuunusna waynu soo maray tasbiixdiisii iyo in ilaahay yidhi subxaana wa tacaala waxa lagu badbaadiyey qur-aanku wuxuu ka warramayaa nebiyullaahi muusa oo markuu yidhi rabbi aan ku arko ee rabbi yidhi yaa arkarimay sida buurtaa eeg ee rabbi buurta tajalli u sameeyey ee buurtii dekan noqotay markuu miyirka ku soo noqday tasbiix buu ka bilaabay falamaa afaaqa qaala subxaanaka tubtu ilayk tasbiix buu ka bilaabay baa la yidhahdaa nebiyullaahi zakariya ilaahay wuxuu weydiistay in ilmo la siiyo isagoo gaboobay ilmihii baa rabbi yidhi waa ku siiyey aayad ii yeel baa la yidhi aayadda waxaa la yidhi 3 maalmood dadka ha la hadlin ramzi mooyaane ishaaraad inaad kula hadasho mooyaane hadal caadiya ha kula hadlin laakiin arrin iyada ha ka tegin baa la yidhi wadkur rabbaka kaiiran wasabbix bilcashiyi walibkaar baa la faray ilaahay ilmaha waa ku siinayaa laakiin dikriga ilaahay badso dikrigii markii la sheegay tasbiixdu waa ka mid haddana gaar baa loo sii sheegay bay leeyihin oo waxaa la yidhi wasabbix bilcashiyi walibkaar nebiyullaahi ciisa ilaahay wuxuu tilmaamayaa aakhiro marka la soo taago ee la yidhaahdo maa anta qulta linnaasi itakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illaah maadaa dadka ku yidhi anigay hooyaday ilaahya naga dhigta waxau ka bilaabi doonaa baa ilaahay leeyay qaala subxaanak maa yakuunu lii an aquula maa laysa lii bixaq subxaanak buu ka bilaabaya nebiyullaahi moxamedna ilaahay wuxuu faray qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiira ana waman itabacanii wasubxaana allahi wamaa ana min almushrikiin dadka waxaad ku tidhaahdaa baa ilaahay yidhi jidkayaan idinku yeedhaya waa kan ilaahay baan idinku yeedhaya anigoo calaa basiira ku sugan ana waman itabacanii aniga iyo intay raacdayba wasubxaana allahi dheh baa la leeyahy wamaa ana min almushrikiin ilaahay baan xumo ka hufayaa inta rabbi ceebaysana kama mid yihi mushriku waa ceeb leh ilaahay sifaadkiisa iyo asmaadiisa iyo magacyadiisuu diiday cibaadadu alla la siinayuu diiday rabbi buu ceebeeyey weeyaan ilaahay markaa wuxuu leeyahy waxaa tidhaha wasubxaana allah wamaa ana min almushrikiin bale qur-aanku ambiyada daaye dadka kale saalixiinta ah ee ilaahay jannaadka korkoreeya u ballan qaaday astaamahooda waxaa lagu suntay tasbiixdu inay ka mid tahy inamaa yu'minu biaayaatina aladiina idaa dukiruu biha kharuu sujada wasabaxuu bixamdi rabbihim wahum laa yastakbiruun tatajaafa junuubahum can ilmadaaji ilahay wuxuu tilmaamaya kuwa aayaadka iyaga rumeeyey inamaa yu'min biaayaatina aayaadka iyaga kuwa rumeeyey waa kuwan oo qura baa la tilmaamaya waa kuwa ilaahay marka la xuso ee la xasuusiyo hoobta iyagoo sujuudsan oo wasabaxuu bixamdi rabbihim baa ilahay yidhi ilaahay u tasbiixsada iyagoo ku dheehaya xamdiga alle
وان اسوينين كجر بالرب لي مصالحين تقول ما يا إلهي ملائكته إنه المام إنا لنحن المصبحون بيت المامي يسبحون الليل والنهار لا يفترون وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم ملائكة إلهي وحط المامين التسبيح لازمان أهل الجنة ذاتك خير كبدن له يقول استي إلهي وحط المامين كل واقيا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين حمدية تصبيح بها إلهي كقور رمية أهل الجنة دعواهم فيها سبحانك يا رب كشيغ يا سبحانه وتعالى أيها الأحبة تصبيح له دين تمركا مقام سريك جرته ضد كان ضمبه وحيابا بدع لما وديبا الله يسكت ديين لا لدق علمه لكن واحد مدائن للراعية وحي دين تفرش ذاتك والصوفية وكم بالليلي دبتنا ذاتك عدة وفي يعني فريد كاهي وانك صلاة يراها لها مركو كبحو ترى أن لقرين وفراعين كالا يدعو سبحان الله انت الله يدعو لما هي اسكتك لكن لشيء انه وحي وبدنت ان تصبيحات وكو يرادين iyadoo inuu dadkii laga yaabo inuu ka mashkalad badan oo ay hayd inaga subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazimtu inay nagu tira badato nabigana alayhi salatu wassalam xadiiska muslim warinaya bidar uu ka soo wariyay waxa uu la yiri nabigu wuxuu yiri ala ukhbiruka bi ahabbil kalam ila allah waxyaba la u jecel yahay ku sheegaa buu nabigu ku yiri haya noo sheeg baa la yiri ilaahay rasuulkiisa inna ahabbil kalam ila allah subhanallahi wa bihamdihi buu nabigu ku yiri ويقال له وجعليه وحكم سبحان الله وبحمده حديث اللي بدأ بدر ورني وحلي نبي قال له ويدي أي الكلام أفضل وركم حوفظ بدن نبي يقول ما اصطفى الله لملائكته وحال لملائكتي سودورت أو لعبادي وهو معي سبحان الله وبحمده إذن أيها الأحبة تصبيحه أما وردك وحكم دي العبادات المطلقة عبادات علماء يدهدان عبادات كان وقتك لهين شروط لهين على جواب الصلاة صون حج شروط إليين وقت إليين ولا مدين وقت يدا صوب على السماء أما تصبيح دو حكم تهي محي عبادات مطلقة في أي مكان في أي وقت بعد لا يمكرته حانو النبي ينوت المامي عليه الصلاة والسلام أذكارته وفي عن الكمدي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته هو أنتي ورددي ونبي وصار نقضي وهو شاغي النبي عليه الصلاة والسلام أنتي ورديني سوحك فضل بدن يسوي لي ويرهنا سبحان الله وبحمده إلهي بان حمكه فيانيك كل هيا ما هاد نقيس عدد خلقه ترى مخلوقات كيس يو زنة عرشه يرضى نفسه يمداد كلماته إذن أيها الأحبة تصبيح أما الطعام كهالنقط أما الصلاة بهالنقط عمر بن الخطاب محل شيء ولو كنت مصبحا لأتممت صلاة قصر قاعد مركو والرمي يدي ديرين حولي ولو كنت مصبحا هدان تكنيو سنة يعني هدان تكنيو أنا قو صفرة تفر الكابان ديرين لهابولي ولو كنت مصبحا لا أتممت إذا تصبيح له وحد الله يابطه هدا دركت ولا تصبيح صدا وحد استحسان صدا هدا دركت ولا تصبيح صدا وحد استغراب صدا هدا دركت ولا تصبيح صدا وحد إنكار هذا درجة والله تصبيح صدا شرعه أنت بوسو أروري شدة مركي شرط والله تصبيح صدا وين آيات كصوارنا ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فصبح الهير نعمة مرك الله حلو وحلا ينفر فرس كأننا مدة بدينا مقاري كأننا مرك نفول إننا نمحين دهنا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مغرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون علماء يقولون تجدد نعم نعمة هذا يكون عصبوناته
فلما أفاق قال سبحانك وعافماد قبي دبتنا ومير بالي دبوا عافماد waxay dhahdaan tajadud nicamka waxaa la yidhahdaa subxaanak waxaa ka mid a markaad ducaysanayso waa laga horaysiiyaa fasabbix bixamdi rabbik wastakfirhu baa ilaahay markaa yidhi waxay culammadu yidhaahdaan haddaad dembi gasho waa la tasbiixsadaa qaala awsatuhum alam aqul lakum lowlaa tusabbixuun ama ducadii allahuma anta rabbi laa ilaaha illaa ant waxay sheegaysaa in la tasbiixsado markaad wada eegto nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy man qaala subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim maalintii 100 jeer ninka yidhaahda dunuubtiisa waa la dhaafaa wain kaana midlu zabadi lbaxr saxiixeynku ku yaallay xataa hadday xoorka badda leeg tahay at least xataa haddaynu idhaahno saqaa'irta oo saqaa'irta maxaa ka badan subaxii markaad soo toosto ilaa iyo inta gabalku ka dhacayo ama adaa hadlaya ama mid hadlayaa dhegaysanaysa imisaa khayr aad u malaynaysa waagu markuu baryaabaynu war bilowna haddaanad adigu warramayno mid warramaya dhegaysanaysa ama t v ha ka warramaya ama raadiyo ha ka warramayo ama telefoon ha kuugu warramayo ama suuqa ku sheekaysta mid warramaya warkaa imisaad isleedahay baa kitaabka khayrka ku jira imisaad isleedahay base kitaabka sharka geli kara idan waxaad maanta cala alaqal waxaad saqaa'ir gashay haddii lagaaga dhaafayo subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim ood 100 jeer tidhaahdo wax la dhaafo maaha kurbada iyo mashaakilku markuu ku qabsado sida nabiyullaahi yuunus uu yeelay laa ilaaha illaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin waa la sameeyaa ayuha alaxiba cidhiidhigu haddaad gasho waa la sameeyaa idan waxaynu leenahay abaa hurayra waxaa laga sheegaa ibnu sacd ibnu xajar raxmat ullaahi calayhi ayaa wuxuu leeyay ibnu sacd baa wuxuu kusoo saaray bisanadin saxiix can cikrima ana abaa hurayrata kaana yusabixu kula yowmin 12,000 tasbiixa maalin kasta inuu tasbiixsan jiray 12,000 oo jeer innaga tusbaxaynu sideena waa imisa waa 100 haddaad bar rogto 2 rogto 3 rogto waxaad sodhanaysaa wallahi maanta cidi kaama badna soo maaha haddaad 10 jeer rogto maxaad sodhan lahayd dee 1,000 jeer baad tasbiixsatay socay kaa maaha abaa hurayra wuxuu leeyahy anigu 12,000 oo jeer baan tasbiixsadaa markaasuu weliba wuxuu leeyahy usabixu biqadri danbi buu yidhi dee warkan iyo waxaan kale aan akrinayo intaan dambaabay in leegun baan isleeyahy buu yihi tasbiixso ayuha alaxiba ilaahay wuxuu ina farayaa dikriga inaynu badino wuxuu kaloo ina farayaa tasbiixda gaar ahaan inaynu badino yaa ayuha aladiina aamanuu dkuru llaha dikran kaiira wasabbixuuhu bukratan waasiila baa layidhi ilaahay dikri badan xusa si gaaraa loo soo tilmaamo waxaa la yidhi wasabbixuuhu bukratan waasiila wadkur rabbaka kaiira wasabbix bilcashiyi walibkaar kay nusabixaka kaiira wanadkuraka kaiira tasbiixda inaynu badino alaslu inaynu wardigoo dhan badino oo saxaabigii ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ducadayda maanti imisaan ilaahay rasuulkiisii oo adiga ka dhiga wuxuu nabigu yihi intaad doonto nus baan ka dhigi wuxuu sheegay rubuc baan ka dhigi haddaad doonto ka dhig buu yidhi haddaad ka badsatana khayr baad heli siduu u waday ayuu markii dambe wuxuu yihi haddaa ducada oo dhan ba waxaan ka dhigi doonaa waa waqti uu gaar u ducaysan jiray ducada oo dhan ba salligaagaan ka dhigi doonaa wuxuu nabigu ku yidhi idan yukfa hamuk haddaad sidaa yeesho warwarkaaga waa lagaaga filaanaya waxaa hubantiya waa tijaabinay haddaad warwarto nebi maxamed ku sallida ilaahay wuu kaa qaadaya haddaad warwarto tasbiixsato waa lagaa qaadaya haddaad warwarto laa ilaaha illa allah tiraa waa haddaad adkaarta laasimto laakiin intaynu adkaar laasimnaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuuna leeyahay imaam albukhaariy kitaabkiisa xadiidku ku khatimay xadiidka ugu dambeeya kitaab albukhaari ku yaala waa xadiidka kan kalimataani khafiifataani cala lisaani thaqiilataani fi lmiisaani xabiibataani ila araxmaani subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim saxiixeynka kusoo arooray nabigu wuxuu leeyay 2 kelmadood
oo carabka ku fudud aan waxba kaaga baahnayn haddaad shaqaysanayso tumaaltay wax qoraysid gaadhigaaga haddaad wadato waad iska akhri karaysaa soomaalidu haddaanu tirinayn ma jecla inuu wardiyo saxiixa maaha wuxuu moodaa haddaanu tiris war rabbaa kuu tirinaya waxba tiradana ku mashquuli gaadhigaaga adoo iska wata waxba ha tirsane subxaan allah ma odhan karta adigoo gaadhigaaga wada intaad jaamka ku jirto haddaad wardido misaad wardiyi lahayd waad umalaynaysa waxaa laga yaabaa boqolka subxaan allah 1 minute 2 minute in lagu idhaahdo intaad jaamka taaganta qura ama intaad gaadhiga guriga ilaa shaqada intaad ku jirto haddaad samayso imisaad umalaynaysaa inaad tasbiixsan lahayd guriga ilaa shaqada bes haddaad tasbiixdaada ka dhigto haddaad lugeynaysa iyo haddaad gaadhi wadatayba markaad guriga ka soo baxdo haddaad bilowdo inta aad shaqadaada ka gaadhayso intaad tasbiixsan lahayd shaqadaada markaad iska fadhido haddaad tasbiixsato shaqadaada markaad wadato haddaad tumaalta iyo haddaad laydh samaynayso iyo waxaad doonta haddaad qabanayso haddaa carabka iyo afku waa iska dhaqdhaqaaqi karaan subxaan allahida waad odhan kartaa saa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyahy kalimataani khafiifataani cala lisaan waa erayo carabka ku fudud haqiilataani fi lmiisaan qiyaamaha marka la yimaado xagga wasniga culus xabiibataani ila araxmaan alle agtiina laga jecelyahy ilaahay agtiisana waa laba kelmadood oo laga jecelyahy waa subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim buu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ayuha alaxiba darsiga dantan ka leeyoo dhami waxa weeyaan kow ilaahay kitaabkiisa inaynu dhugano horta si fiican u fiirfiirino weligaa haddaad mas'alo rabto inaad baadho musxafka faatixada ka soo bilow ilaa birabbi nnaas adoo su-aashaada wata waxay doontaba ha ahaato waxaan kitaab ku qorayn baad soo helaysa inta badan dadku waxmaysanaan kutubtii culamada qortay ka baadh kutubta culamada waxaan ku qorayn baad helaysaa haddaad alle dhegaysato wuxuu kuu sheegayo wax ku qoran oo aanaad weligaa fahmi jirin baad fahmaysaa haddaad qur-aanka faatixada intaad ka soo bilowda ilaa birabbi nnaas bal waxaan ku qoran aad eegto xamdiga ilaahay muxuu ka sheegay haddaad eegto subxaan allah ilaahay muxuu ka sheegay qur-aankiisa haddaad eegto laa ilaaha illa allah maxaa qur-aanku ka sheegay haddaad eegto aakhire maxaa qur-aanku ka sheegay dadka waxay isweydiiyaan muxaadaraadka see loo diyaariya ilahay kitaabkiisa oo la akhriyaa laga diyaariyaa axsan master loo noqdaa waa musxafkaas oo aad si fiican u akhrido oo si fiican u fahamtid dariskan dantan kaleeyoo dhimo waa laba shay mar waa in xidhiidhkiina kitaabka alle la leedin uu weynaado caqligiina ballaadhan fahamkiina kordhi xikmad baad heli rabu samaawaati waalardi anzalahu bicilmihi baa ilaahay yidhi aqoon baa alla ku soo dejiyey kitaaban fasalnaahu calaa cilmin baa ilaahay leeyihi idan cilmigaasi kitaabkan buu ku jiraa ninba intuu kala soo baxaa buu leeyahy ninba intuu ku tadaburaa buu leeyahy ninba intuu ka fahmaa buu leeyahy kaasi waa mid ka labaadaan idin leeyahna waxa weeyaan abnaa'i saxwa gaar ahaan wardigu wuu yaraaday adkaarta dadku waa ku yartay dadka bar tusbaxaa bidcaa bay yidhaahdeen tasbiixdana way ku dareen tasbiixdana tusbaxay raacday hadday saa noqonayso tusbaxaaga iska sidoo tasbiixso haddii tusbax iyo israacayaan tasbiixdu iska sidoo tasbiixso asalku waxa weeyaan qofka muslimka ah inuu ilaahay xuskiisa badiyo intaad aadane iyo makhluuq xusi lahayd oo maxaa la yidhi aada odhan lahayd inaad rabbigaa xuskiisa badiso adkaarta wixii kuu fudud aada akhrisato subxaana allahi wabixamdi alxamdu lilah allahu akbar laa ilaaha ila allah laa xawla walaa quwa adkaarta soo aroortay allahuma salli calaa muxamed inaad wardi joogta a maalin kasta yeelatid wardigu waktiba ma qaato waktigaad shaqadaada wadato ayaad wardiyi kartaa waxa hami inugu raran ee culaysina saaran ee warwardegi waayey ee dhakhtaraa kula wareeray waad ka maarmaysaa waxaasoo warwariye heerye ah rabbaa kaa rogaya adduunka intaad joogto aakhirana kuwa alxaamiduun ayaad ku biiri doontaa ee qur-aanka ilaahay ku tilmaamayo altaa'ibuuna alxaamiduun kuwaasaad ku biiri haddaad aakhiro aad tagtana sala allahuma calaa muxamedin wala ali